puntland mowqifka hadda ay taagan tahay oo xiriirka ugu jireen dowladda dhexe ee soomaaliya oo iyagoo dastuurkan aad taageerteen ka duulaya khalad iyo saxteed u aragtaa khalad waa khalad ma ka gabanayaba haye kaligood ma ahane wax kastoo dhaca haddii madaxweyneyaal hore yihiin iyo haddii ra-iisul hore yihiin iyo hadduu maamul goboleed kale yihiin iyo haddii puntland haddii hirshabelle tahay anigu aan ku dhashay iyo haddii galmudug tahay adigu ku dhalatay may rabtaa ka timaado sideedaba xasanow alif waxmale iyo wuxuu leeyahay meel mada gasho ina ismujaamilana ma aha waana in dad waaweyn la noqdo waana la dhimanaa biri taariikhaana rabays kulligana akhraan u socnaa adeerow macaanow maanta lama joogo xilligii la isqabsan lahaa soomaaliya 4 dhibaataa ku dhacday waana kala dhashay midnimada dhashay diinta markay ka tagtay iyo wadaniyadii iyo walaaltinimada dhexdooda ahaa oo qabyaalad iyo gobol gobol isu nacday burburaa ku dhacay misku diidana isku diidan burburkaasna waxa asal u ah oo dhibaatada waxa uga faa'iideystay markii burburkaas ku dhacay fargelin shayaatimi waa la qaybiyay haddana markii la qaybiyay ee awoodooda daciiftana shabaab ku abuurmay ولا سؤال شيء سؤال كم وصل لين ما أنت وحنا بحكي كرنا وحياب إلهي القرآن كنا وشجع وحول لي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي أمد ما بدلوا دبعتي يكون جيران إلهي يسكب بدلانه دبعتي وحي وذين وحنا هنا اللي مادين ما أنت مركا معنا إلا هذا ملا أنا غير كذا عن كل شيء أبقى هل كان دقن هذا أنت جينا توران أو يراهن هرشبيل عنك وحكنا ولا لا هذا دقن حوالي قال جعل انت اللي دقنون رجال وين اي وحي معنا هذا انا قبيلكم اجيده waxaan ka wada deegaanka hadii inta isu tagaan maanta joor fadhiisan ay yiraahdeen anaga waa karnimo dawladda hore karnimo waan ka baxnay maxay soo korinaya puntland yaa lamida galmudug yaa lamida waxa soo korimaya waxa way kaliya aan xalqadii hore oo mufraqa aheeday oo aan 23 sano ku soo jirnay oo colaadihii ka dhashay xarb ahliga uqdadii ka dhashay oon ya iyo masaalix qabiilo wahmiyoon jirin aan maanta oo dhan Soomaali ku mashquulina waa yahay puntland ka soo koow mashaayikhdan kale sheekh shariif iyo raggan kale oo ayaguna qaba war shalay meel baan ka wada duulayna maantana go'aan iska qaadatay ku haya oo waliba dhowr marna ay madaxweynaha kulmeen culimaha daatiin ayagu kuwaana idin dhow ma la kulanteen oo ma la fariisateen والله هرتو ما حسوسته هذا انا شخصيا فاسرنا شخصيا مدحوينها مرم فوقين لكن ده شر علماء او علماء اهان هرتو ما قرنايو مدحوين الشيخ شريف وأنا محترمة وأنا ذل كان مدحوين كسر نقضي واللي بحالة وقت كاي دولتكم الجاركة أول المحكمة دي إسلامية هاي شقة بدن قبطي هذا هو واحد كم هذا مقاس إعلام كاد هو عدد كد يربورك سجاف فري وقام يكحلهم كساكر لقى مقالة سيد دياري وكو دور شيء وقه رئيسي كنت سنة كبار حمر ساكو قبطي دولتكم الجاركة ساكر ساري وحصلنا والو احترامي لكن ما أنت وحأفرا إنه وايديو madaxweynihii waxaa ka darajo sareeya kaliya asaga oo ka isyaanaysa madaxweyne cabdiqaadir xasan asaguna qaahiro joogaa war dawladda hala taageero kasoo dhawaaya waa ku xurmad le waa xurmad badana waay ma garatay hal maalin wax deelqaaf kuma hadlin waxaa la rabaa madaxweyne shariifna inuu ka odayeeyo malafaadka maanta taagan madaxweynuhu waa madaxweynihii asaga xilka uga dambeeyey waa walaalkiis haddana markii kaambeynka soo galayeen waa ninkii asagu maaragtay iska dhab taagnaayeen ay wada socdeen maanta puntland iyo waa go-ana dhahaysa iyo mucaarad kaleeto iyo madaxweynihii ugu dambeeyey dalka oo xasan ka horreeyey maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dadkaasoo dhan asaga ma ahan asagoo ninkii inta la safta mowqif la qaadan lahaa waa ninkii ayaga dooni lahaa oo dowladnimada iyo ayaga u kala dib qaadi lahaa oo madaxweyne xasanna wixii uu isleeyahay waa ku khaldan ka qaban lahaa muxuu uga duwan yahay farmaajo sheekh shariif oo saa u sameynaya wuxuu uga duwan yahay كامبينك حسن ومدحونا كل قضيه والشريف لا صعده اسغ لا صعده فرماجو كسو هرجيدين يا واقر وحون اعدي فرماجو اعدي حسن اعدي اسغ شيخ شريف هدو يا او سو صار marka اسغ هري وريق لبد وحول لي مدحون حسن مدحونا نقض ولا اوغيا مقتا تاريخ واقر سدا درادد اسغ خيل غارها صار خيل غار wuxuu ka saaran yahay inuu dhamaan soo wada keeno oo si nabada ku soo dabaalo midda labaad madaxweynaha waxaa kaloo laga maarmaana inuu ixtiraamo madaxweyne shariif xasan shariif maandaydka hadda dowladnimada ninka haya waa madaxweyne xasan sheekh waaye sheekh shariifna ma hayo siciidna ma hayo farmaajona ma hayo mar walbana madaxweynaha haya inuu ixtiraamaa la rabaa siyaasadda dowladda hogaaminteeda asagaa iskale tala waa la sii karaa waa loo nasiixayn karaa
laakiin isagoon aayad quraan iyo xadiid ka hor imaanin oo aan lalahayn ilaaha loogu dhowaanayo in lagu inkiro isaga waxaan diintu bedelay ya oo wixii ay ra'yi yihiin ra'yigu markuu laysku qabto dadka dhegeysto go-aanka ugu dambaysa madaxweynaha iskale marka taas xaq u male laa madaxweyne sheekh shariif walaa madaxweyne farmaajo walaa madaxweyne deni walaa cabdiqaadir cusubli oo aniga aan qaraabanaha walaa kayruhum walaa cabdiraxmaan dheere xaq u male madaxweynaha tala waa sii karaan hadduu waxyaabaa qaar ku khaldayan xataa waa sheegi karaan waa dhihi karaan saan kuma habboona laakiin inay abaabulaan mucaarada liddi ku ah oo calanka u qaadaan ama ay isku dayaan inay maarata mashruuca dawlad dhiska ay ayagu carqaladeeyaan ayaga laftooda kuma habboona bir hadday madaxweyne noqdaan midkood uu noqdo marka ra'yigaa ka hadlaya mise afka culamada ku hadlaysa maya diintaba saas qabtaba haye diintu waxay qabtaaba يعني آياتها يا حديثة وقت كان كودي أنا كقول راب. وحوال. هل حبان كل شيء كله. هل أورن كل شيء. أفر إمام أو أفر تمذهب. وكره الله. ابن صلاح الإمام ابن صلاح شيخ الإسلام ابن صلاح والشافعي شيخ يدوى. الإمام ابن عبد البر ومالكي الشيخ يدوى. الإمام ابن تيمية وحنابلة الشيخ يدوى. سؤالكم يسد. الإمام القاضي عياض وحوي حنفية الشيخ ودوا أفر تاس إمام أو أي مدى هو الإسلام كمذا نول بمركو شرح أي حديثك السمع والطاعة عليكم بالسمع والطاعة في صحيح البخاري ومسلم كجرة وهذا واجب أن يكون إنكم لحظة إن الداعين وحكست فيما تكرهون واحد نعبتين واحد جعشين واحد نبدأ كواي واحد نبدأ كواي كلي ساسو نقول لي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح هو مركزي وحي اللي طاعة ولي الأمر منكم لحظة الله أضيع أفرتود من البقار وليه ويا اللي كتبتي وقرين حديث صحيح وضع شرحين كل وضع شرحين كتبت صحيح البخاري ومسلم وضع شرحين وحي اللي طاعة يعني طاعة ولي الأمر منكم لحظة الله أضيعه من طاعة الله ورسوله فيما لم يأمر بمعصية وحي كمتها إلى رسولك صلى الله عليه وسلم هذا وصل مع صفرين هذا وصل مع صفرين مركا أنا وركن شيء وورا علماء الإسلام كسوق قولنا دينتك وابنها واي وما ستها شارع وجه سوحر ربا dadka maalin dhaweed markii cod sirha oo la duuba la yiri wixii ka dambeysay waxa la yiri odagu waaba odo qabyaaladiista oo abgaalnimadu ku weyn tahay bismillaah Soomaalnimaduna ugu weyn tahay marka bal horta ma cod public oo ah mise mid sir oo ah codku sir oo ahaa familkayga iyo anaan dhex maray waxyaabo dhilo cid ku xantama jirteen sheegay hada waxyaabaha markii majaalista sirta la joogo la soo sheegana public waa mamnuuc been la geeyo yaa ka qaaday oo ma ani ciyaalkayga bis ayaga fakiyimi ayaga laga sifar sama loo qaatay waa una sida loo qaatay sifar sama looga qaatay wareysi aan dalsan ka bixiyay oo hala taageero dastuurka naftiisa hadda wadiinaysa rag xoog ka caleysana farsamo ilmihi shax u dagay waan ku guuleysteen wax weyn ka dhaxraadinaya waxaana ka sii digay waxaana ka sii digay cali yare ani markii aan mowqifka qaatay yani baarlamaankan hala taageero yaan haddii ilaahay la dhihin maaragtay dowladda laga hor imaanina go-aanka ayaa waxaa hadlay cali yare cali in la yidhahdo yani hawada t v-gaaga hadda ka salaamayo oo gudoomiye ku-xigeenka amniga ahaa jira gobolka banaadir nin siyaasi o dhalinyaro qiimo badan wuxuu yidhi wuxuu hayaa marka kolley tiim oo ka tirsanaan jiray oo dagaal igu qaada aniga xogii buu hayaa waa nin xariif ah wuxuu yidhi war hooy maanta haddana mawadaadka shiiqa shalay dowladda taageersanaayaa maanta qoryaha loo qaatay in la dagaalamo war dagaalka hala joojiyo lacag lagu bixinaya laba maalmood kabacdina codkaa soo baxay